نبينا صلى الله عليه وسلم وحو حديث كلا كشيغي أو يري اغتنم خمسا قبل خمس كفى إذا سشن انتينا شنكو إيمان وحاكوتي في حديث كاسد وكلا شبابك قبل هرمك شباب لماذا أنت كنتو كفى إذا سينتو نقبوكو إيمان انت قوة دلالة كفى إذا سو انت أين ضعيف لمكو إيمان سيدو كلا النبي صلى الله عليه وسلم حديث فربضا ayuu dhalinyarada ku tawjiihinayaa ugu bayaaminayaa waxaynu soo qaadan doonaa hadduu ilaahay idhaahdo tusaalayaal kooban oo ka sugnaaday dadkii shabaabka ahaa markii ay garteen waxay qaban karaan iyo awoodda ku kaydsan markii ay garteen waxay ugu faa'iideeyaan diinta islaamka bal fil caalami kulli waxay ugu faa'iideeyaan baynu soo qaadan doonaa ugu horeyn markii nabi sallallahu alayhi wasallam waxyiga lagu soo dejinayay cidii uu la wajahay oo la tagay waxyiga waxay ahaayeen dhalinyar bay ahaayeen kuwii qaaday diinta dhibaatadeeda u taxamulay waxay ahaayeen dhalinyar kuwii gooshay badii gaalnimada ahayd waxay ahaayeen dhalinyar bay ahaayeen kuwii bedelay qaab nololeedkii looga noolaa maka iyo madiina bal fil caalami kullihi waxay ahaayeen dhalinyar bay ahaayeen kuwii nabi sallallahu alayhi wasallam uu ku tilmaamay afdalul ajyaal waxay ahaayeen dhalinyar nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi khayru nnaasi qarni thumma alladhina yalownahum thumma alladhina yalownahum dadka waxaa ugu fadli badan dadka qarnigayga nool iyo kuwa ku soo xiga haddana kuwa ku soo xiga sidaa daraaddeed dhalinyartaasi waxay ku noqdeen oy martabada ku heleen waxa weeye way dadaaleen tarbiyadii nabigana sallallahu alayhi wasallam si dhaba bay u qaateen